waxaa socda mutadawaraad isbedel badan oo xagga amniga ah. amnigu waa mas-uuliyad wadareed, idinkuna aad wax ku leediin, annaguna wax ku leenay, qaybteeda ku leenay. waxaanu jeclaan lahayn markaad amni aad ka hadlaysaan inaad marka hore horta qofku markuu amni ka hadlaayo waxaad tihiin niman aada loo dhegaysto, ummadda Soomaalida ay idin dhegaysato idinka, in aad ka qaadataan qayb saliim ah, qayb xalaal ah inaad ka qaadataan oo aad noqotaan xog ogaal waxa dhacay arrinta u dhacday, aad noqotaan dad ilaahay ka baqay inaad noqotaan. muhiimaddu waa taa weeye. aqoonna aad u leediin waxaana ku qoraysaan. waxaan filayaa saddexdaa haddaad isla heshaan, aqoontii iyo xog ogaalnimo iyo alla ka cabsi, haddaad saddexdaa isku dartaan waxaanu aaminsannahay wax xaqiiqa inaad qoraysaan. waxaad qortaan ciidankan waa akhriyaa, waana dhegaysanaa, waana tixgelinaa. taas waa mid wey. amniga markaan dib ugu soo noqdo, amnigu waa mas-uuliyad wadareed, innagoo dhan ina saaran. qof kasta oo muwaadina oo Soomaali ah waa waajib saaran waay inuu amniga kaalintiisu ka qaato. waxaynu u soconnaa oo aynu hayaan u nahay oo u guuraynaa waa dowladnimo, waa qarannimo. ma rabno inay waddada inaga xumaato, inay jihada inaga khaldantayna ma fiicna. dhacdooyinkii dhacay ugu dambeeyey, berihii ugu dambeeyey waa la socotaan. in alaalintii dhacdoo dhacday mid aan qof loo soo qaban oo dad loo soo xirin ma jirto. waxaanu caddaynaynaa shalay inaan maanta ahayn, horena u niri ciidankan booliiska meel walbuu taagan yahay, goob kastuu taagan yahay. wixii dhacana waa ka daba tegaynaa. inaanu ka hortagno isla markaana aanu ka daba tagno wixii karaankeenna waa lagu khasbay. dembi kastoo dhaca waxaanu ballan qaadayna inay dad maxkamad u tagaan, in nin walboo dembi ummaddan ka gala darajo kasta ha lahaado in laga jaaseeyo. idinku waxaanu doonaynaa inaad ka noqotaan hormuud, inaad xalaal ka noqotaan, in wixii aad tabanaysaan isleediin waxaan nimanka wax qoraa waxay baaraan laftigooda, inaad gacan ka geysataan amniga maanta dalka socda, inaad hormuud ka noqotaan geedi socodkaas ummadda ay qarannimada ugu socoto, inaad qaadataan in waxaynu qorayna ay wax xaqiiqa noqdaan. aad baan idinkaga mahad celinayaa intaad qorteen iyo intii aad hadda aad maaragtay aad wadaanba shaqo fiican aad ummaddan u haysaan, shaqadoodu haysaan teeda kalenu haynaa. waxaan idinku marti qaadinaa inaad ciidankan booliiska si toos ula soo xiriirtaan. waxaan idinku marti qaadinaa su-aalaha shaki idinkuga jiro inaadna weydiisaan. waxaan idinku marti qaadaynaa inaad ciidankan aad meel walba ad ku arkaysaan aad la falgashaan, ood waraysataan, ood la socdaan, si aynu dalkan u gaarsiino meesha aynu doonayno inuu gaaro. innagoo dhan inaga dhan waxaynu raadinaynaa oo doonaynaa dalkan inaan gaarsiino meeshaynu damacsannahay inaynu gaarsiino oo ah dowladnimo rasmi ah, kala dambayn iyo sharcigoo sarreeya. aad iyo aad baan idinku mahad celinaya, waana mahadsantihin.